faa'iidooyinka caafimaad ee malabka. Malabka waa midka kaliya ugu macaan waxyaabaha uu Alle ugu deeqay ummadiisa inay ku manfaacsadaan. Sidoo kalena laga yaabo in aadan ka warqabin inuu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. Malabka isbeddelka maqaarka saameyn weyn ayuu ku leeyahay. Caawinta inuu miisaan dhimis sameeyo saameyn weyn ayuu ku leeyahay. Waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan malabka waa in loo isticmaalo daaweynta dabiiciga ah. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaamil yeelay addoommadiisa wax kasta u baahan yihiin. Qur'aanka kariimka ayayna ku caddahay malabka iyo faa'iidooyinkiisa. Tamarta wuu kordhiyaa. Haddaad doonayso inaad kordhiso tamarta jirkaada, isku day inaad malab ku darsato qorshaha raashinka qaar maalin walba. Dadka sameeya jimicsigu wuxuu leeyahay faa'iidooyin ballaaran. Malabka cun wax yar oo aan badnayn jimicsiga, xitaa marka aad leedahay ciyaar adag, hore isu cun. Qodobka labaad, cuncunka dhuunta waa u daawo. Xabeebta wuu u fiican yahay malabka haddii aad leedahay dhuun cuncun ama riixyo, waa mid aad ugu wanaagsan malabka, wuuna daaweeyaa haddii aad joogtayso. Qodobka saddexaad, wuxuu dhisaa difaaca jirka. Malabku wuxuu awood weyn u yeelaa unugyada difaaca jirka, khaasatan haddii aad ka shaqaysid meelaha jeermiska badan. Isku day in aad joogtayso shaah lagu daray malab iyo liin maalin walba. Xasuusnow haddii aad carruur leedahay inaad ka ilaalisid cunug ka yar 1 sano. Dheefshiidka ayuu dhibaato ku leeyahay. Waxaa kaloo ka ilaalisaa haweenka uurka leh. Qodobka afaraad, miisaanka wuu dhimaa. Ma og tahay in uu malabka ka qayb qaato dhimista miisaanka jirka? Tusaale, haddii aad biyo diirran oo lagu daray liin dhanaan aad cabtid aroor kasta, waxay yareysaa baruurta. Laakiin ha ka hilmaamin inaad malab ku darsato. Qodobka shanaad, hurdada wuu ka qayb qaataa. Haddii aad dhibaato ku qabto jiifsashada habeenkii xilliga hurdada, malabka wuxuu kaa caawin karaa. Raac tilmaamahan yaryar: ku shubo koob, dabadeedna ku dar caano diirran, kadibna cab. Malabku wuxuu qofka ku keenaa deganaan iyo raaxo habeenkii xilliga hurdada. Qodobka lixaad, dhaawaca waa lagu daaweeyaa. Haddii aad dhaawac qabto meel ka mid ah jirkaada uu dhaqso ku dawoobi waayo, fadlan tijaabi oo faashad in yar oo malab ah ku shub, dabadeedna mari nabarka iyo hareerihiisa. Ku dhaji faashad, waa jeermis dile malabka, xanuunkana wuu ka yareynayaa. Waa tijaabo la sameeyay oo lagu guuleystay. Qodobka toddobaad, neefta urta ee afka waa lagu dagaalamaa. Runta waxay tahay malabka in uu la dagaalamo neefta urta ee afka ka soo baxda. Taasina micnaheedu ma ahan inaad cadayga joojisaa. Haddii aad leedahay neefta urta oo loo yaqaano karoonikada, waxaa isku dartaa in yar oo malab ah iyo qarfaha shaaha si aad ula dagaalanto neefta urta.